السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن داوديال ومركل أي برنامج كان يفتين شلبا. مسؤولية صحفي هرتا صحافة هرتا وود وين رنتي. صحفي waxa la yiraahdaa waa inuu noqdo xirfadyahan sida dhakhtarku uu barta aqoonta inuu barto. warbaahintu hadii ay ganacsi noqotana way ka tagaysaa wax mas'uuliyad kasta iyo wixii asaasiga ahaa loo futay ama ay warbaahintu markii hore matali jirto dhan mas'uuliyadda bulshada iga saaran waxa weeyaan inaan wixii wanaaga aad u horseedo waxa daawadayaal sida aragteen ba warbixintani waxay ku saabsanaan doontaa saxaafadda gaar ahaan maxay tahay mas'uuliyadda saxaafadda iyo saxafiga ka saaran bulshada daawade ma dareensan tahay inta aad daawato TV inta aad akhrido journal inta aad dhageysato idaacad in qofka wariyaha ama saxaafadda ama hay'adda saxaafadeed ee ku waramaysa inay mas'uuliyad iska saarto bulshada warbixintan ayaynu ku ogaan doonaa wax badan oo mawduucaas la xiriira ee bogasho fiican saxaafadda saddexda qodob ee salka waa shaqadeeda ay hayso waxa lagu soo koobay waxbaris wargelin iyo madadaaleyn waxaana dadku jecel yihiin inay xooga dheeli tiran ka helaan iyadoo ay muuqato in la sugayo xilka mas'uuliyadeed ee saxaafaddu bulshada u hayso xeerka saxaafadda Soomaaliland ee xeer lambar 7 oo soo baxay 2004 18 bishii koowaad qodobkiisa afraad wuxuu si cad u sheegayaa mas'uuliyadda saxaafadda waxa faqradaha qodobkaasina kamid ah saxaafad kasta waxa ku waajibay inay xaqiijiso in wax soo saarkeeda saxaafadeed ee ay fidiso uu noqdo mid run ah oo dheelitiran saxaafad kasta waxa ku waajib ah ilaalinta xafidaadda sirta xiriyaha ciidamada ee baahinteedu keeni karto in cadawgu wiiqaan istiraatiijiyadda iyo awoodda ciidan ee dalka ma banaana suxufi shisheeye inuu galo ama sawiro xiriyaha iyo fadhiisimada ciidamada iyo goobaha kale ee gelistiisu si ku meel gaar ah loogu diidan yahay sababo ammaankiisa la xiriira dartii haddii aan loo ogolaan ma banaana in saxaafadda lagu baahiyo sawirro iyo muuqaalo aadamo oo qaawan haddii aanay kalifin sababo cilmiyeed ma banaana in saxaafaddu baahiso faalooyin iyo maqaalo lagu ceebeynayo ku dhaqanka shareecada iyo karaamada diinta islaamka saxaafadda ku xadgudubta faqradaha qodobkan waxaa loo raacayaa anshax marinta ku xusan xeer hoosaadka anshaxa saxaafadda iyo xeerarka madaniga ee dalka ee falkoodu khuseeyo saxaafadda waxaa ku waajiba bixinta cashuurta ruqsadda iyo saxaafaddu way u siman tahay cashuuraha iyo takliifta kastamka ee la xiriira keenista agabka iyo qalabka saxaafadda marka aynu ka nimaadno mas'uuliyadda xeerka saxaafadda ku cad waxaan la kulanay khabiir Yunis Cali Nuur oo ah suxufi rugcada ah oo muddo dheer ka soo shaqeynayay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da mas'uuliyadda saxaafadda horta wax awood weyn runtii berigii hore waxa loo oran jiray waa awoodda afraad awood yani waxa loo jeedaa marka mujtamaca la eego cidda hoggaankiisa haysa ee wax xukumi karta ee hoggaamin karta ee sharci dejin karta ee wax xidhi karta oo ahaa dawladda iyo heedan sharci dejinta iyo maxkamadahooga iyo booliska iyo waxyaabahaas yani awood lahaa sharci dastuuriya awoodda kale afraad waxay ahayd baa la yidhi la oran jiray media way media isaga jiheeyay mujtamaca oo siyaasiyiina u warama mujtamacana u warama siyaasiyiin mujtamacana oo kala dab qaado oo kala wargeeya oo dhinacu doon u jeedin kara mujtamaca maanta waabay ka badatay oo waxa la yidhaahdaa awoodda afraad ma aha haddaanu awoodda koowaad meediyu ahayn saxaafaddu ahayn waa awoodda labaad baa la yidhaahdaa runtii dagaaladii awal hubka la isku adeegsan jiray ilaa 78 sano ugu dambeeyay waxay u bateen wax la yiraahdo media ama psychological warfare ama media propaganda in halkii laga adeegsan lahaa gantaal iyo diyaarad laga adeegsado warbaahinta oo dagaalku isku bedelo dagaal warbaahinta lagu dagaalamayo ilaa maantana xoog leh marka awoodda ayuu leeyahay tusaalaha ugu culus ee loo adeegsado marka laga hadlayo ilaalin la'aanta mas'uuliyadda saxaafadda ee bulshada ka saaran waxa la soo qaataa dhacdada xasuuqii Rwanda oo saxaafaddu door halis ay ku lahayd Rwanda
dalkan Rwanda 1994 dhacdadii weyneed ee ka dhacday kumanaanka kun ee qof ay ku dhinteen kumanaan ku barakaceen dalkii dhan is rogay sababteeda waxa lahaa saxafiyiin ayaa lahayd iyagu waxay doonaan hawa adeegsadaan ama qabiil hawa adeegsadaan markaas qabiil ayay ahayd laakiin mas'uuliyadda ka dhalatay wuxuu noqday dalkii dhan inuu rogmado ayuu noqday mas'uuliyaddaas markaa dayacdo waxaa ka dhalan kara qof ama dad ayaa madaxaada u dhiman kara markaynu ka nimaadno saxaafadda dalkeenna waxa ay su-aashu tahay intee in leegayay mas-uuliyaddaasi gutaan mise dayac mas-uuliyadeed ayaa jira run ahaantii mas-uuliyadda bulshada naga saaran inaan xog siino waanu ku guulaysan xogta aanu siinayna inay xaqaa'iq noqotona waanu ku guulaysan xaqaa'iqa aanu siinaynaana inaanu annaga oo aadamo u khalad haddana inuu khaladkaygu koobnaado baanu ku dadaalo maalin walba waxaa kuu soo dhacaya 50-60 war baa kuu soo dhacay oo xafiiskaaga imanaya maalin walba mas-uuliyadaha iyo culayska ku saarmaya waxaa ka mid ah warkaad hesho cid uu tacalluq u leeyahay ama xidhiidh la leeyahay warkaasi oo ay tahay mas-uuliyaddeedu inay warkaa aad hayso wax ka tiraahdo oo kugu adkaata maalin walba inay wax ka tiraahdo oo ah mas-uuliyaddii helid la-aanta qofka mas-uulka ah ee xogtaa laga gudbiyey in ay bulshadii dhinaca kale ay hesho waa caqabadahan haysta iyo dhaliilaha warbaahintu ay leedahay ee dhinac intay sii dayso ay dhinaca kale weydo ama intay dhinac iyagu ka caajisaan dhinaca kale oo hadhow tole ka dacwoodo marka horta waxyaabahaas aad baan iskaga ilaalina culays badanna nagu haya runtii maya anigu kawaan ka ahaade kama soo bixin waayo warbaahinta waxa saaran inay bulsho dhan iyagu jiheeyaan oo bulsho dhan ay u jeediyaan dhinac horumarineed waqti aan fogeyn baan sameynay xog baadhis aniga iyo qolo kale saxafiyiin iyo arday jaamacadaha ku jirta waxaanu xogta ka sameynay warbaahintu doorka bulshada ay ku leedahay ma gabtay mise way gudday runtii waxaan aragnay dad badan oo dhibanayaal oo ah warbaahinta halkii ay dheefkii helayeen iyagiiba dhib u geystay ama saxafi baa u hanjabay ama been abuur baa laga qoray runtii waa tira aan yarayn baan xamso aragnay ama waxa weeyaan in uun baa qof kale oo xiriir la leeyihiin ama ehelada ama asxaab loo handaday laguna handaday mihnada iyo awoodda warbaahintu leedahay marka runtii lama gudin boqolkiiba wax badan san oran karo maxamed baarjeex waa nin ganacsado ah wuxuu mar dhibana u noqday gudasho la-aan ka dhalatay mas-uuliyadda saxaafadda bulshada ka saaran iyo iyadoo si qaldan loo adeegsaday awoodda saxaafadda wax fudud oo wax yaroo fudud oo caadiya marka hore dee markii dambe la noqday dee wax dil oo kale ah oo basharku waxyaabuhu u baleerayo waa in yani dil waa qoorgooy waa naf oo waxyaabaha dee matalan aan qofku geynin laysku soo adkuis garayo ayaaba kala hawl yar maalmaha ka mid ah been rabadaan nin la soo hadlo wuxuu ugu yiri waxaa nambaradii waxaa maadaa sameeya adeerhaana sameeya dowladda dee lagtaan u shaqeynaa oo samayso oo kontraaga maan ka qaadano saas weeyo dadku wuxuu yiri qolooyin baa wax ka qoriyo ha qoraa maan ku adeer taana maalin dambe la soo hadlo sidoo kale adeer waxaan ka sheekaysan ma garanay baan ku maanta labaad website ka mid ah Soomaaliland ayaa wuxuu qoray isagoo wax ka soo xigtay website kale waxaad barshay xamar tiraba laba goor tagay oo uu tagay halkan lacag intuu ka guray baa mushirka hadii bukuuro yahay qolada magacaada la shabaabta u geeyay oo xuluud bay ninka leeyihiin wasiirka daaqiliga waa isku reer arrimo noocaas dabeetu arinta way ila foolxumato haddana waan arkayna in waxba ka jirin ku jirin kiis waxba igamay waxaase dhacday in suxufigii muddo kadib uu maxamed baarjeex u tagay maxaase talo dhex maray laakiin niyo basharka intiisana waa la sheegaa qofku ninkii bari dambe muddo dheer ka dambeysay wiilkan wuxuu waan ku toogtay halkaasaan xabad kaaga tuur wax la wax ku dilayna ma garanayo adeer saamax buu oo anigu waa soo qaadka lafteedu wax dhacdo soo dhacday uun ayuu maalin shan gareeyay waan saamaxay isagana waan la taliyo waxaan ku wada adeer waxa soo kale adigana waa ku foolxumo qofka kale ku leedahay ku qorgooyo hadii
cidii kuu soo dhex maraysana iska ilaali haddii adiga kaa imanaysana iska jir imikana taan waxaa leeyahay saxaafadda la maaman ku leeyahay war waxa noocaas la soo dhex maro marar kale soo marto websayda qaarkood wax kale la dowladda Djibouti la isku hayo dhufto waxba yani haddana de way wixii aan jirin ma jiraan aan jirin bay noqdeen suxufiyiintu maadaama ay yihiin kuwa ku shaqeynaya mihnada saxaafadda ee ka howlgalka xarumaha warbaahinta maxay tahay mas'uuliyadda iyaga sida gaarka u saarani suxufiga waxay mas'uuliyadda ka saaran tahay mujtamaca dhan oo laga yaabo inay malaayiin yihiin oo baahsan oo ama dhageysta ama akhriya ama daawada in aanu marin habaabin ayaa mas'uuliyadda ka saaran tahay oo isaga u adhigihii ka sugaya xog sugan inuu keeno mas'uuliyadda weyn wax weeye waxyaabaha jira ee dhacaya ee dadka saameynaya ee noloshooda ay ku xidhan tahay ama siyaasadda ha ama abaar ha ama roob ha ahaatee in uu xog buuxa uga keeno xogtina waa inay xog sugan noqotaa haddii kale khayr laawu noqonaya wax halaago halliga aniga saxaafi ahaan waxay saaran waa inaan ilaaliyaa meelaha aan ka doonayo barnaamijyada ama programka ama wararka aan ka raadinayo inaan bulshada u soo gudbiyo wixii horumarkooda ah inaan u soo gudbiyo wax ay wax ka dheefayaan inaan u soo gudbiyo wax tayo leh oo wax baraya aqoontooda iyo kabacoodan kor u qaaday mas'uuliyadda qofka suxufiga saaran waa mid aad u ballaaran waayo bulsho dhan ayuu wax u gudbinayaa oo waxa uu u gudbiyo isaga ku go'aan qaadanaysa haddii waxa aad u gudbinaysaa ee bulshada dhan ku go'aan qaadanaysa noqon waayo wax saxa oo aanad adigu mas'uuliyad ka suxufi ahaan iska saarin wuxuu noqonayaa wax saameeya bulshadii marka mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan kow inuu u gudbiyo wax xaqiiqa laba in uu wacyigelin oo bulshadii uu wacyigeliyo maadaama bulshadii isagii ku xidhan tahay isagii doonayso iyo ta kaloo ah in uu ilaaliyo wixii dee ka soo horjeeda dhaqanka bulshadaasi ama diinta qaybaha warbaahinta ee inta badan canaanta loo jeediyay in aanay ilaalin mas'uuliyadda saxaafadda ee bulshada ka saaran waxaa ka mid ah baraha bulshada sida websaydyada ama degalada iyo wargeysyada arrintan ayaa waxa aanu hordhignay cabashada ugu badan waxaa laga yaabaa inay tahay dhinaca internetka taasna mid ay dunidoo dhan inala qabto social media oo aynu ognahay cid walba wax ku qori karto xitaa qof magaciisa iyo sawirkiisa aan la aqoon iyo website-dada iyaguna social media ku soo xigo iyadana laga yaabaa inay 100 qof mid walba uu furayaashiisa wax ku qori karo laakiin saxaafadan daabacan tusaale ahaan marka geeska Afrika la yiraahdo adiga xamsa marka waxaad garanaysaa hebel baa jooga marka qof walba wuxuu ku qasbay inuu isu dhowro maanta maqaalka gees ku soo baxa qofka aad weydiiso markii waad qanaad telefoon ku soo furtay waxa qortay waxa ka inta badan qaladaadka ugu badan waxay ku badayeen kuwa aan dadka qoraya aanay muuqan waxa in warbaahin badan oo Soomaalidu leedahay qurbaha laga soo aasaasay oo ganacsi loo furtay inay dalkii soo galaan dabeetana cid wax ku qorta iyo cid mas'uuliyadeeda haysa iyo cid aad uga caawato maanta oo tiraahday institutionkaasi xafiiskiisaan tagoon uga cawday ma jirto ma meel loo tixraaco male waa inaan computer sita kadibna halkii uu soo gaaray waa ku qoraya waxa uu qorayaan wuxuu mala awaalaya tahay mala awaalkuna dee run iyo been ba iska noqonayo waliba been u badnaanaya caqabadaha oo ka mid ah culeysyada hakiya in la gaadho ujeeddo loo socday iyo bartilmaameed la xaqiijin lahaa ayaa waxa la isweydiin karaa miyay jirtaa caqabad suxufiyiinta ka hor joogsanaysa inay gutaan mas'uuliyadda bulshada ka saaran xamse waad mahadsantahay dhinacyo badan way dhantaali karaan wallaahi waxaa ka mid ah number 1 suxufiga oo kala garan waaya mas'uuliyaddii ka saarneed dadkii iyo tan gaar ahaaneed waxaa qayb ka ah in aanay mas'uuliyadda ay leeyihiin u adeegsanin si cadaalad waa waxyaabo luusan oo in ka mid ah ay sameeyaan waxaa jira dhaqaalihii oo kala saameyn buu ka qaadan karaa waxaa laga yaabaa inanka warbaahinta ka shaqeeya inta badan dadkan doonaya wax loo qabtaa ama wax loo qaldaa waa dad ama power haysta ama lacag haysta waa ama ganacsata ama dee dowlad iyo hay-ada kale powerful jooga maaha dowladda qore marka iyagoo adeegsanaya dunida dhan way ka dhacdaa iyagoo adeegsanaya powerka haysana ama dowladnimada ama dhaqaalaha oo inankii siyaabaha qaar way uga qasbi karaan waxyaaba aan intikiskii saxda ah inayn inuu faafiyo hadal xun uu yidhi inuu isaga qoro to ama lambar 2 suxufigii oo qaata laaluush oo shaqadiisa ku qaata waxa laaluush loo yaqaano ama qabaxda
ama sharuur wuxuu doono qofba ha yidhaahdo yacni shaqadaadood lacag lagugu siiyo ood ku qaadato waa waxa ugu weyn ee ka mid a waxyaalaha wax dhantaalo marka tiradii korodhay horumar weyn baa xaggaa ka yimid marka xagga tirada la eego xorriyatul qowlkii horumar weyn baa ka yimid laakiin xagga tayada marka la eego iyo anshaxa wax alla wax horumaroo la sameeyey runtii ma jirto haddaad jaraa'idkeenna subaxii akhrido oo aad eegto yacni waxaad akhriyaysaa tayo ma leh wax yacni baaritaan lagu soo sameeyo xoga hoos suganoo aad sii xiisayso ood sii akhrido ma leh waxaa jira hab iyo hanaan loo horumariyo loona kabciyo mas-uuliyadda saxaafadda ka saaran bulshada iyo sidii uu suxufigu mas-uuliyaddaas u gudan lahaa iyadoo sidoo kalena la dhisayo mas-uuliyadda suxufiga laftigiisa saaran dadkaas soo koray waxay u baahan yihiin in wax la baro runtii waxaa loo baahan yahay waa in wax la baro aqoontii la baro haddaba aqoontii xaggee laga helayaa meel kasta maanta dad badanoo wax yaqaanaa jira iskuulla fara badan baa jira jaamacadaa jira qofka isaga self study ama isaga wax isbari kara oo internet wax walba laga heli karaa jira marka xagga aqoonta dhalinyaradu marka laga eego iyo siday u doonayaan aniga waxaa ii muuqda bidhaan aad u qurux badan wariyaal oo hablayeyna male oo suwan wanaagsan mustaqbalkooga ifaya ayaan arkayaa laakiin barashada ma ahun inaad jaamacadu gasho oo qura ma aha shaqada lafteedaa lagu bartaa saxaafadda ku dhex jirto ayaa lagu bartaa koorasyo aad tagto ayaa lagu bartaa tababaro aad tagtaa lagu bartaa bractis aad bractis garayso ayaa lagu bartaa runtii oo siyaabaha loo bartaa aad bay u fara badan tahay marka aqoontana qofka suxufigiihi ma aha yacni inuu yidhaahdo maqaalad baan qori aqaana ama filim baan duubi aqaana aqoonta guud general knowledgekiisa waa inuu kororsadaa aqoonta guud ee uu leeyahay adduunka waa inuu kororsadaa in xaqiiq marka laga hadlayo in home cable TV journalistka annaga nala shaqeeya ama suxufiyiinta waxbaan barnaa jaamacadaha waanu ka bixinaa ka aan jaamacad dhiganin waanu ku dhiirigelinaa scholarship iyo jaamacadaha waanu uga helnaa kuwa jooga ee shaqada iminka ku jira ee aan iyagoo shahaado haysan jaamacadeed noo yimid dib baan wax u barnaa kuwa imaada waanu ku qaadanaa aqoon isweydaarsiya waanu u qabanaa meel ay joogaanba waanu ugu qabanaa tababarayaal kala duwan waanu u keennaa gunaanadka markaaynu kusoo dhowaano maadaama oo ay talooyinku xambaarsan yihiin fariimo wax lagu saxayo iyo horumar laga sameeyo khaladaad jiray ayaa waxa aan daawadayaal jecelahay inaan idinku dhaafo talooyinkan soo socda kow waxaa haboon in lagugu barto qofka in lagu bartaa ayaa haboon runta run sheegidda inta badan imika waxa laga cawdi waxa weeyaan waxyaabo aan sal iyo raatoona lahayn waa inay noqdaan waxaad tabinaysaa ama programka ama barnaamijka aad qabanaysaa ama wararka aad samaynaysaa inay noqdaan kuwa runta ku salaysan marka waa in lagugu yimaada run sheegnimada aynu garanno doorka inagula baahan yahay warbaahinta ay bulshadu inooga baahan tahay aynu garanno waajibaadka inaga saaran aynu garanno dhibtaynu geedsanaa intay leeg tahay aynu garanno bulshada sumcadda halkaynu dhigno bay taagnaanaysaa haddaynu kor u qaadnana bulshadaas kor bay ahaanaysaa sumcaddeeda iyo aqoonteeda iyo jiritaankeedu haddaynu hoos dhignana waxa weeye halkaas may taagnaanaysaa hoos mid hoos taala ayay bay ahaanaysaa hadduu hal baaragraaf noqdo oo saxan kaasi ayaa bulshada wax taraya laakiin haddii laba page oo qaldan aad qorto bulshada wax ma tarayaan waxaan odhan lahaa iyaynaan heybadda iska qaadin suxufigu wuxuu ku jiraa dadka labeenta ee mujtamacaasi waa inuu heybadiisa ilaashadaa ka in lagu caawiyo horta in la tuso in la akhriyo wuxuu si lagu caawin karaa marka maqaal qoro inuu xabsa feedback soo siiya oo maqaalkaaga waan akhriyo waxaan ku wanaagsanaa halkaasna aragtaa ku halkan waa bad ku qaldanay berito kan qoray waa saxaya marka wallahi xamsiyad kun xamso kala ku akhriyay marka in dhinacii bulshada ay ka timaado saxiidiinta waxaan inamada ay qorayaan la eego dad wixii talada tusaale soo kordhin kara bulshada intaas ma lahayn saxaafadii inaan gooni wala bixinay nin baa isticmaalay in kala bulshadu ka mid yahay inuu nin yahay baana suurtagalaba qof weyn oo magac laho habal loo yaqaano isagoo muraad u leh inuu dee amba dawladda ku jiirayo muraadka ku inuu jiirsiyo ama mucaarad jiirayo oo jiirsiyo amba suldaana jiirayo oo jiirsiyo babaacu sharajiir yani dad waaweyn oo nooca laftooda isticmaalayana kiyara laftooda way jiraan taana waxaan dhan walba uga digayaa war cid ay ku dhacdayna way ku dhacday cid ay ku soo socotaana filatay laakiin si waxaan leeyahay war bahal la milmaas gareeyo inaguna haddii bulshadii iyo dawladdii labadaba nahay xil bay naga saaranay waxaynu la qaban karayno
aynu wax la wanaajin karayno ee sharciyadda dowladduna ay la toosin karto innaguna aynu ku taageeri karayno arrin iyo adduunba in la qabto de waxa naftayda anigu kula talin lahaa ayaan anu jecelayna qofka saxufigaana kula talin haddii aan mihnaddan u imid oo mihnad soo doontay mihnadda aan soo doontay waa inaan ka rushay oo aan waajibka ay leedahay aan maro oo noqonaya aqoonteeda inaan la imaado oo noqonaya dadaalkeeda inaan la imaado oo noqonaya fikirka ku saabsan inaan wax abuuri kara inaan la imaado oo noqonaya inaan bulshadayda xog siiyo inaan la imaado haddii ay ka dhalan karaan intaad wax aad sheegtay oo runa hadda u fiirso oo run ah oo waxba aadan qaldan ay ka dhashaan dhibaato iyo dhimasho waxaad sheegtay waa qalad ka feker dadka aqoonta leh ee yaqaanana raadso meel walba ay joogaan